salaamullah dhammaantiin soo dhawaada muuqaalkan waxaan ku dirayaa laba fariimood waxaanan jeclahay inaad gaarsiisiin labadaa fariimood cidda ay khuseeyaan ay ku socdaan haddii aan dul istaago qodobka u horeeyo ku socda ciidamada Somaliland ee ku sugan xeebaha gobolka Awdal waxaan leeyahay waxaan nasiib daraa inagoo maanta sheeganayna dal dunidii ictiraaf ka helay diyaarna u ah inay dawlado kala aqoonsadaan in ciidankeenu garan leeyahay markii uu isticmaali lahaa shaarkiisa dawladnimo iyo dirayska uu xidhan yahay markaan saas ilaahay waxa la yaab ah in xuduudaha marka laga soo talaabayo ciidankaasi xeebta loo diray ay indhaha xidhanayaan marka dadka lagu soo duulay ay dhirbaaxo kala hortagaan dadkaasi soo duulayna ay la soo baxayaan shaarkooda dawladnimo oy tusayaan inay dawlad yihiin rabaanna inay u dawladeeyaan ay wax u tilmaamaan sidoo kale waxaa nasiib daraa ciidamo amni loo diray inay ka shaqaynayaan una shaqaynayaan sida road corrista bisha cas hay'adda bisha cas oo meedka u kala qaadayaan labada reer special weliba iyagoo erga u ah hal reer oo ay ogaayeen xitaa markuu xuduudda ka soo tallaabay waa bil xaqiiqa inta ay xaaladahaasi ka jiraan xeebaha waxaa jira dhacdooyin tiro aanan lagu koobi karin oo ay ciidanka Somaliland ula bareereen dadka deegaanka ah ee ku sugan xeebaha gobolka Awdal haddii aan qodobka halkaa kaga gudbo fariintayda labaad waxay ku socotaa bahda saxaafadda gobolka Awdal ama dhalinyarada beachiska waaweyn leh ee soo gudbiya marxaladaha ama dhacdooyinka ka dhaca xeebaha gobolka Awdal run ahaantii dunidan aanu ku noolnahay saxaafadda ama meediyo waa meelaha wakhtigan casriga ah waxna laga dumin karo waxna laga dhisi karo waxyaabaha aad gudbinaysana marxaladda lagu jiro wixii ku hoos jira haddii aad uga fiirsan weydo waxaad waxyeelaysaa dadka aad wax taris leedahay waxaanad wax taraysaa dadka aad waxyeelis leedahay markaan saas leeyahay hadda tusaale arrintan xeebta ka taagani ma aha laba reer oo isdilaya dusha uga eegta laakiin waxa ku hoos jira arrimo siyaasadeed oo guban state iyo huuha iyo waxyaabo aan fahmayna oo dawladda Soomaaliya niman Ciise ay isku ogyihiin sida horeba sanadkii hore u arkayseen in xubnaha baarlamaanka ugu jira dawladda Soomaaliya beesha Ciise ay si public madaxweynaha uga codsanayeen inay maamul noocaas loogu dhawaaqay guban state meel la yiraahdo malaha diri dhabiya ay shacab u dhaxays sidaas laajigeed adigu waxa aad gudbinaysid waa inaad aad uga fiirsatid tusaale booramo ina wax ka dhicin haddaad tiraahdo waxa isku dilay reer hebel iyo reer hebel ogow waxaad wax tartay dadkii doonayay inay pictureska gudbiyaan tusaale imika Lughaya kale maalintii dhaweytay Lughaya magaaladu nabad bay ahayd dhulkay wax ka dhaceen intaas oo kiiloomitir bay jiraan haddana iyagu waxay rabeen inay Lughaya picture ku galaan saxaafadeenu way soo gudbinaysay Lughaya dagaal ka dhacay markaas yad wax yeeshay yad wax tartay aad looga fiirsado aad baan ani salaamiya waxaad soo gudbinaysiin aad iyo aad looga fiirsado